jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar miro dhalay oo ku tagay dalka Mareykanka kaasi oo horseeday guulo diblomaasiyadeed kuwa dhaqaale iskaashi amni iyo fursad dawladda Soomaaliyeed ay ku soo bandhigtay qorshaheeda xaqiijinta Soomaaliya heshiis la ah dunida kana adkaata kuwa diidan nabadda horumarka iyo dawladnimada Soomaaliya waxa uu noqday socdaal shidaal hor la ku shubay halganka xaq ah ee baraarug bulsho oo hormuud u yihiin shacabka Soomaaliyeed laguna soo afmeerayo maafiyada al-shabaab isla markaana fursad weyn u noqday kobcinta tunka dhaqaale ee dalkeena horumarinta hanaankeena diblomaasiyadeed ee guunka ah iyo gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen kadib kulamo miro dhalay oo madaxweynaha jamhuuriyaddu la qaatay madax dawladeed iyo mas'uuliyiinta hay'adaha caalami ah 16 Sebtembar 2022 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu booqday dhismaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo uu kula kulmay xogayaha difaaca dalkaas Lloyd Austin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay madaxda dalka Mareykanka intuu halkaas ku sugnaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu kala hadlayna waxa ay ahayd ammaanka iyo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ku qaadeen deegaanada argagixisadu ay haystaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay garabka dawladda Mareykanka ay siiso dawladda Soomaaliya ee argagixisada dirirka ah iyo howlgallada ammaanka lagu sugayo. tani waa tallaabo muhiim ah oo madaxweynuhu u qaaday in duulaanka midaysan ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku ekeeyeen goobaha ay maamulaan al-shabaab uu helo garab caalami ah qayb weyn ka qaadan kara xaqiijinta himilada muddada dheer la dhowrayay ee dib u xoreynta dalka. 17 Sebtembar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha umuraha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iskaashiyada amni iyo dhaqaale ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Mareykanka. madaxweynaha bangiga adduunka David Malpass oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la kulmay 16 Sebtembar ayuu kala hadlay dhamaystirka barnaamijka deyn cafinta iyo in mashaariicaha horumarineed ee deeq-bixiyaasha caalamka lagu saleeyo baahida dalkeena. kulanka madaxweynaha uu la qaatay bangiga adduunka madaxweynihiisa David Malpass iyo golaha bangiga adduunka iyo hay'adaha kala duwan ee bangiga adduunka sida MIGA iyo IFC wuxuu madaxweynaha uu kulanka ku adkeeyay madaxda halkaas fadhiday ee bangiga adduunka in Soomaaliya laga taageero dib u soo kabashada kaabayaasha dhaqaalaha in mashaariicda bangiga adduunka iyo hay'adihiisa kala duwan ee Soomaaliya ka fuliyaan ee xoogga la saaro sidii loogu saleyn lahaa baahida dalkeena. madaxweynaha wuxuu kulan la qaatay madaxda hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo golaheeda. kulanku la qaatay madaxweynaha Kristalina Georgieva waxyaabaha diiradda la saaray waxaa koow ka mid ahaa in la sii wado lana xoojiyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka si loo gaaro marxaladda ugu dambeysay deyn cafinta oo loo yaqaan completion point. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud. 22 Sebtembar 2022 khudbaduu ka jeediyay fagaaraha golaha loo dhan yahay ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo bandhigay saameynta taban ee dalkeena uu ku yeeshay isbeddelka cimilada iskaashiga halganka xooggan ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dib ugu xoreynayaan dalka dib u heshiisiinta iyo hanaanka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ula macaamilaan dawladaha caalamka. Somali people have begun to organically rise up in support. shacabka Soomaaliyeed waxa ay bilaabeen in ay ka kacaan si ay u taageeraan baaqa dawladooda ee ah in ay naftooda iyo dalkooda ka difaacaan garta argagixisada. maalmahan waxaan argagixisada ka xoreynay magaalooyin iyo tuulooyin ay ku dhibaateynayeen dadkeena iyadoo howlgalladaasi ay iska garabsanayeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanada taasi oo horseeday guulo waaweyn. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka qayb galay martiqaad uu ku maamusay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu ku bogaadiyay doorka togan ee dawladdiisu ka qaadanayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab. madaxweynayaasha Suudaan, Slovenia iyo Boqor Cabdullaahi Urdun oo ay dhammaan ku kulmeen kulan duceedyo barbar socday shirweynaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu madaxweyne Xasan Sheekh kala hadlay xiriirka iyo wax wada qabsiga dalalkan kala dhaxeeya dalkeena.
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa muddada uu joogay maraykanka sidoo kale kulan la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo uu kala hadlay xoojinta xiriirka qaramada midoobay iyo Soomaaliya iyo kobcinta taageerada hay'adaha qaramada midoobay ay u fidiyaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. madaxweynuhu sidoo kale waxa uu waqti siiyay jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka oo warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka, qorshaha dawlad dhiska, la dagaalanka argagixisada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursadaha tirabeelka ah ee maalgashi ee ka jira dalkeenna. dal qani ah waay saddexdii wax oo traditional ka aan lahayn oo bar iyo beer iyo bad ahayd weynoo yaalaan xoolaan leenahay, beeraan leenahay, badaan leenahay, kuwa kale oo badan oo aan la garanaynin oo oil and gas ay kamid yihiin oo minerals kale oo fara badan ay kamid yihiin nawaanoo yaalaan waa leenahay. dhammaantood aqoonta aan leenahay iyo dhaqaalaha aan heli karnaa naguma filna si aan uga faa'iidaysano. waxaan u baahannahay aqoon dheeri ah iyo dhaqaale dheeri ah oo aan uga faa'iidaysano muxuu ahay khayraadkaas dhulka korkiisaan ku noolnahay, korkiisaan baahi gaajo ugu dhidhimanaynaa. waxaan rabaa oo kala caawa inaan halkan ka sheego haddii Soomaaliya hal tallaabo hal yacni taako oo wanaag ah oo dhinaca san inaad u qaadda haddii aad doonto waa inaad ku dagaalantaa, haddii kale waa lagaa hor istaaga. waxaan rabaa negative energy-ga ayaa dadkeena qaarkood aad ugu badane horta in la isgaarsiiyo inaan negative energy-ga 32 years 32 sano is a long time